Kusoo dhawaada everyone, Maskaxda Healing. Manta, I am back with Dr. Ahmed covering mental health topics again. Manta maxaan ka hadlaynaa fahamka depression, maxay waxyaalaha oo la fahmin oo maxay muhiimka ah ayaan ka hadli doonaa oo depression ku saabsan tahay. Dr. Ahmed ayaa noo bilaabayo inuu na fahansiiyo depression waxay tahay. Nimca aad iyo aad baad u mahadsan tahay waanan ku faraxsanahay inaad programkaaga mar kale aad igu soo casuuntida oon ka hadalo waa runta waxa weyan depressionka horta waxa yaab leh soomaalidu hadda meel kastay joogaanba inay depressionka barteen oo maalin dhoweed qofan la hadlay baa igu lahaa depressionku sow dhulka maraykanka kuma badna buu igu lahaayo marka inaan waqti bay ka qaatay inaan ka dhacdhiciyo inuu depressionku Soomaaliya iyo Afrikaba uu ku badan yahay oo dhulku intooda badan ay siman yihiin marka waan macnayn doonaa sababta depressionku uu meel kaste u jiro uuna isku si u jiro laakiin depressionka inkastoo Soomaalidu yaqaanin laakiin macnahan haddii la macneeyo waxa weeye waa murugo joogto ah oo qofku murugoonayo marka waan sii sharaxaynaa calaamadihiisa hadduu ilaa idhaahdo Maxaa rabaa inaan fahmo like dadka se ay u arkaan murugada because murugada waxay ma fahmaan like clinical depression inay tahay oo qofkaas ay maxay ahayd dhibaato badan u keeni karto. haa nimca aad baad mahadsan tahay waa runtaayo horta lama fahmi karo because murugadu waxa weeyaan waa dareen caadiya oo ilaahay dadka ku abuuray so marka qof kasta uu murugooda iminka haddii masalan aad waxaad aad u rajeynaysa aad weydo qofku murugoonayaa masalan qofka haddii qof ka dhinto uu jecel yahay wuu murugoonayaa qofka haddii shaqo uu ka shaqaynayay laga fadhiisiiyo uu murugoonaya marka waxyaabo badan baa murugada keenaya qofku inuu murugoodo waa wax normala oo ilaahay ugu talagalay marka sidee baad u kala saari murugadii caadiga ahayd ee ilaahay ugu talagalay dadku ay murugoonayaan marka dhibaato la soo daristo iyo murugadii xanuunka ahayd oo afkan ingiriiska loo isticmaalo clinical depression sababta clinicalka loogu daray baa waxay tahay qofkani inay waxaanay xanuun tahay oo inan ahayn murugo iska timiday sax and then maxay ahaaday sida ay uu qofka uu maxay ahaaday u arki karo calaamadaha maad noo sheegi kartaa haa horta intaanan calaamadaha gelin ayaan waxaan sheegayaa in horta waxyaabaha depressionka dadku ay ku khaldaan so waxyaabaha depressionka dadku ay ku khaldaan waxaa ka mid a sida sadnesska ama qofku inuu maxaa la yidhaahdaa uu iska dareemo niyad xumo ama niyad jab oo kale uu dareemo iska caadiya oo aan laakiin xanuun ahayn marka taasoo kale waa laga yaaba inay ku khaldamaan oo la yidhaahdo qofka waxaanay dadku way ku dhacdaa way murugoodaan haddana way ka kacaane maxaad adigu aad sidanun u tahay oo aad u kici laadahay ad wax u qabsan laadahay mogta in qofka la yidhaha la bush gareeyo ayaa dhici karta taa way ku khaldaan waxaa kaloo ku khaldaan griefka oo ah innaka dhaqan ahaan waxaa la yidhaha I think kelmad qulub la yidhaha la isticmaalaa waa murugada timaada marka qofka qof ka dhinto uu jecel yahay so qofku markuu qof ka dhinto uu murugoonayaa waxa laga yaaba inuu ooyo waxa laga yaaba inuu cunto cuni waayo waxa laga yaabaa inuu habeenkii seexan waayo oo qofka xasuustiisii maanta dhan maskaxdiisa ku jirto oo uu qof aad u murugaysan oo niyad jabsan uu noqdo marka taana waa normal waxa weyan bini'aadanka markuu qof ka dhinto inuu murugoodo wax ilaah ugu talagalay laakiin inteeda badani aduu ilaa in muddo ay socotaa qofka badanaa bil 2 bil 3 bil ugu badnaan ilaa 4 bil ayuu qofku griefka amba murugada la xidhiidha dhimashada qofka kale uu dhintay uu ku joogaya laakiin hadday wuxuu markaa dhaafto 4 bilood dan markaa waa in qofkii la eega leeraa qofkan waxaani markaa murugadii la xidhiidhay dhimashada qofka ka dhintay ma waxay isku bedeshay hadda depression bay isku bedeshay waa inay isku bedeli kartaa because depressionka laftigiisa ayaa 2 nooca sidaan hore usoo sheegnay mid waa clinical oo ka clinicalka qofku iskaga bilowdaa isagoo oonan waxba ku dhicin
waxaa laga yaabaa isagoo ilmaha inuu ku bilaabmo, isagoo qof weyn inuu ku bilaabmo, isagoo ilmaha intuu kusoo bilaabmo inuu weligiiba haysto oo ku weynaado oo qofku ilaa intuu ka dhimanayo uu hayo waa dhici kartaa. Marmaruu ka roonaado laakiin uu weli depressionkii uu ku jiro. So kaa waa clinicalka waan kani qofka iska bilaabmaya bilaa sababo la'aan. Mid kalena waxaa la yidhahdaa situational weanoo waxa u keena xaalad baa u keenta. So situationalka xaaladdu kane ay keenayso waxaa ka mid a masalan qofka inuu qof ka dhintay saan soo sheegno oo kale oo 4 bilood ee griefka intuu dhaafo kabacdi uu depression caadiya dareemo la yidhaha qofkani sidii masalan ay hooyadii uga dhimato sidii hooyadii uga dhimatay kabacdi wuxuu iska noqday qof depression la dhibaataysan ayuu iska noqday in la yidhaha waa dhici karta. Waxaa dhici karta masalan qofka haddii masalan divorce uu galo kale oo ninka uu naagtiisu gabadhiisu xaaskiisu ay ka tagto kale waa laga yaabaa inuu noqdo qof iska depress oo shaqaysanayn oo waxba qabsanayn oo maxaa la yidhaahdaa depression uu ku dhaco. Marka waxyaaba saasoo kale ayaa keenayo qaarkood waa situational oo waxbaa keenaya, midna waa clinical oo ama waxaa la yidhahdaa organic baa la dhahaayo waa kani iska imanaya iyada oo ayna sababi keenin. Marka dadkeenuna meesha confusionku ka imanaya dadku ay badanaa ku wareeraanba waxay tahay way fahmi karaan kani wuxuu keenayan waxaa la odhanaya oo qofkan waxa u keenay qof baa ka dhinta uu jeclaa marka uu kasoo kaban waayey. Laakiin kani organiga ayna waxba keenaynin waanka inta badan dadku ayna fahmayne ay la rafaadaan ay confuseka ku noqdaan. maxaa kaloo aan dhihi rabe depressionka like like waxyaalo kaloo dhibaato kale uu raacaa jiro sometimes because maxay ahaday like trauma just from my own experience like especially in 2016 I remember like 2 years xaafadda ma ka bixi karin like noloshay oo dhan like somehow like maxaa lahaa like waxba kama rajaynaynin nolosha so I feel like that time clinical depression waa haystay so maxaa raba intaa ku weydiiyo sometimes waxyaalaha like other diagnoses or waxyaalo kale oo aad dealgaranaysid mise it's like a trauma that you got triggered again or you're going through those symptoms again or nightmares waxyaalahaas kale may keeni karaan too. Nimcoy waa example aad u fiican. Waa runta depressionka waxyaabo kale xanuuno kale way keeni karaan. Iminka hadda adigu waxaad kaga dhawaajisay traumadoo kale masalan traumada markaan leenahay waa qofka dhaawac maskaxdoo ka soo gaadhay dhibaato loo geystay. So iminka waxaa laga yaabaa qofka masalan ina qof walaalkii oo kale lagu hordilay gabadh waxaa laga yaabaa in la furxumeeyey marka dhaawaca maskaxda ee dhibaatadaasi ay soo gaadhsiisay in marka dambe depression uu isku bedelo qofku markaa murugo joogtaa maxaa la niyad jab niyad xumo cunto uuna cunaynin ama cunto badan oo cunayo hurda la'aan calaamadaha waan soo sheegi doonaa inuu qofku saa dareemo uu noqdo qof aanan waxba qabsanayn oo iska murugaysan markastoo meel iska jiifa inuu noqdo way keeni kartaa. Su-aashaad waxa kaloo i xasuusisay traumada keliya maahe waxa kaloo keeni karaa xanuunada jirka oo kale. So iminka qofka haddii isagoo iska caafimaad qabo iska socda la yidhaahdo oo xanuunka sonkortoo kalea lagaa helay uu qofkii ka naxo naxdinta uu ka naxo marka waa laga yaabaa inuu depress uu noqon karo oo qof iska niyad jab uu ku dhici karo oo marka uu noqon karo qof aanan waxba qabsanayn oo iska murugaysan oo gurigiisa isku soo xidhaya inuu noqdo way dhici kartaa. Xanuunadan kale harataaga dad badan oo harataaga uu keenaa jira depression. Marka xanuuno badan oo noocaasoo keenaa jira waxa kaloo ay la xidhiidhaayoo kale substance abuseka dadkan masalan balwadda iyo daroogada isticmaalayoo kale. Waxaa laga yaabaa qofku markuu daroogadayo waxa uu bilaabo in ay qaarkood anxiety keenaan laakiin qaar baa depression keena oo qofkii marka ay systemkiisa ka maqan tahay inuu noqdo qof iska niyad xun iska xanaaqsan dagaalamaya aanan kici karaynin kicitaanku dhibayso qayladii buuqu dhibayaan oo ilaa uu bahashii haddana mar kale qaata maahine aanan waxba qabsanayn oo dadkiina aanan la heshiinayn oo kale inuu noqdo oo markaa depression au keento ayaa dhici karta.
Marka taasoo kalena waxaa laga yaabaa in ay dadku dee ayna fahmin oo ay u malayaanoo ninkan bilaadanimooyin u samaynayo balwaddan hadduu iska daayo ay wax kastaba hagaagayaan. Mararka qaarkood waxaa dhici karta balwadda laftigeeda haddii laga daweyn waayo in depressionkaasi uu iska sii joogo oo uu socdo. Marka waxyaabo badan oo saasa ayaa keeni kara. Haddii laakiin aan calaamadihiisa hadda aan sheegnoo kale depressionka, badanaa calaamaduhu saad aduu sheegtay waxa weeyaan horta qofku firfircoonidii iyo kartidii uu lahaa inuu waayo. Taana marka waxay keenaysaa qofki inuu noqdo qof keligii meel iska fadhiya, iska jiifa, aanan waxba qabsanaynin, niyadu haynin waxyaabihii awal uu jeclaa. Masalan hadduu awal jeclaa inuu ciyaaro ama uu bannaanka u baxo ama asxaabtii uu la sheekaysto, wixii oo dhan hadda macno uma samayneen. Marka anhedonia baa la dhahaa. Marka anhedoniadu waxay ka dhigan tahay waa loss of interest. Wixii qofku ku raaxaysan jiray waagii hore hadda waxba uma tarayaanoo niyadba uma hayo. Soomaalidu badanaa waxay isticmaaltaa kelmadda ah waxaan hadda niyadba uma hayo oo maba sidii hore uma rabo oo kale odhanayaan. Waxaa kaloo iyadna jira sadness, saan hore usoo sheegnay, murugo joogta oo qofku niyad xun yahay oo wax alla wixii loo sheegaba uu isagu xumaan u arkayo oo uu aad u niyad jabsan yahay. Waxaa kaloo iyadna jirtaa xagga jidhka fatigue, daal badan. Qofku waxa weeyaan isaga oonan socon, shaqaynin, waxba samayn buu maanta dhan ka cabanaya inuu daalan yahay, uuna kici karayn oo kicitaanku dhib ku yahay. Waxaan xasuustaa dadka qaar baa ku odhanaya masalan inaan xitaa kaco oon salaada tukado ayaa igu adag. Oo markaan saa 2 ragcadood u tagaba inaan horey sariirta ka seexdaan rabaa.